رمضان كريم ما أنت واحد سوكي يعني إذا كل هذا مهتصن هؤلاء قالك هو هيسانة في رمضان waxaan ku hadli doonaa laba qodob oo qura mid waa duufaantii ku dhufatay gobolada lixda ah Sanaag Saaxil Maroodijeex Awdal iyo Salad sabab kala cuslayd ba intaaba way saameysay qodobka labaad waa weerarka taliska muqdisho ku soo qaaday Soomaaliland ee soo noqnoqday ee bisha Mayba weerarka joogtada ay ku hayeen ciidamada qaranka Soomaaliland ta hore ee duufaanta horta ilaahay nagala galiyay duufaantu waxay ka qabtay masaayibaha waaweyn ee dunida ka dhaca dalkeenu hore u mulahan jirin oo ka sheekay taariikhda duufaan inta la xoogaa leh waynu arki jiray duufaano waliba u badan inta bariga ee Indian Ocean ka ku beegan geography ahaan ee geeska Afrika halka yar ay badda weyn la gasho laakiin badan cas oo bad yar ah inta badan duufaanadu laabka lama soo wareegi jirin cimilada adduunka isbedeshay awgeed say sheegaan culimada cimilada taqaana duufaantan waxay ka kacday oo ka bilaabantay meel dhow oo gasiiradan soqodara agteeda deetana xawligii u horeeyay oo wax hore markay dhaqaaqaan inay sheed xoog badan beelay dabayshu markii hore isbatay xoog badan leh deetana xoogii ay samaysantayba waxay u leexatay biqadrati Allah xagga badda cas iyadoo xoogeedu wata ayay xeebaha ku soo dhufatay laas qoray ilaa loo yaacdo xoogeedu weyn wuxuu ku dhacay oo u maray Strugi dabaysha weeray oo balaceedu ilaahay koobay hadii ay Strugaasi ballaaran lahayd badii magaalada koobay ku dhacday iyadoo kooban baa wax martay dariiqa Lughaya iyo koonfur wixii ugu beegan oo balaceeduna aan markaa ballaarnayn laakiin roobkii iyo dabayshii iyo biyihii dhacay iyo dhaxantii ayaa ilaa Djibouti ilaa iyo gaaray geeska Afrika badan khasaaraha imika Soomaaliland ka soo gaaray dadka dhintay waa 50 qof oo 49 qof Soomaaliland oo dhan 7 qof raqeer wax lama hayo dadkii waa qaaday baday ku dareen ay ku jiraan qoysas dhan oo deganaayo reeraadee deganaa shamba caruusha jirka yar ah dadka dhintay 7 waa dhaawac magaalooyinka dumay waa baday magaalooyinka aqaladii iskuuladii wixii ku shaqeynay meelaha MCH-yadii waa baday waxa la yaab leh dabayshani waxay siday ee dhibaatada weyn keenay waxa weeye xoolihii ayaan boqolkiiba 80 ka badan baxday waxa la yaab leh xoolaha waxa ugu nafaday bini aadmiga aynu islaamku ka nafsiga waa geel xiraysna halkiisa ku waqti kii daaqay ee markaa dibadda joogay dibadda ku gashay isagoo la xirayna neef waliba halkiisa ku waqti awrtii dabranayd awrka Afrika jirka ah ee la raamay marara dameeru ma ka nafaday xoolaha awrka halkii uu ku daraa aqalkiisa ku waqti horta ilaahay ma hadii way xooga inta leeka ama saxal cudur hasiyo ama barafaside imashada bini aadmiga dadku aad iyo aad ugu yeerin marka loo eego xoolaha imashada xoogeedu waxa ku dhacday laba degmo Lughaya iyo Baki degmooyinka dadku waa laba qof ay u fidsan ilaahay baa keenay ilaahay baana inooga cawd celin doona qaranka waxa inta dheer waxa go'an dhammaan jidkii ka dhacayay buuraha ee xeebta u dhacayay hadiyo jeer waynu qaanayo wadada ka dhacda buuro dhammi waa ciriri waa wada khatar marka roodikeenu ma dhisma waa jidcade jidcadkuna waa biyo mareen marka imika waxa dhiba
gaari aan la cruiser ahayn siduu u gaaro meelaha qaarkood waxaa jira raashin baxay mid ay iska ururiyeen guddidii abaaraha awdal oo ay hore u hayeen kadir hayeen iyo kuwa halkan laga dirayba wixii aanay helicopter qaadin weli dhexda ku jira uu gaari karaa weliba waa lugaya qura lugaya geerisa iyo xariirada waxay isu jiraan 120 inta u dhaxaysa weli lama gelin wararka imanayaan waxa weeye dadku waa fiyoyahay laakiin xoolo waa ku dhamaaday jeedkana waa go'ay dawga quraana maraya waa ka dhaadhay axadka mara ee xariir mara Cabdulqaadir mara iyo kan bulxaale shaqadeeda ka wareego oo isla dhib badan oo booyadii halka ka tagtay lagu dhaamiyo awdal lugaya ay ku jirtay 8 saacadood oo kulbala ku soo jiiday noqotay dhawaataa saaraaday ilaahay un baan guraar hasugnaa maadiya in shicib kasto maqaday in gurbada oo galay ku duceeya ku xoolo ku tara ku xoogiisa la taga ku aqoonta la taga marka ummadda Soomaaliland waxaan soo jeedinaa ugu baaqaya inuu qof waliba wixii uu tamarayo gurmadka kaga qayb galo kii xoolaha uu xoolaha huro kii aqoon leh uu aqoontiisa huro kii xoog leh uu xoog huro wixii aan kor ka raba ilaa la asqoray oo wixii ay laash ku shaqaysanayeen ba ka baxay wadu qaaday ummad dhan ku tirsan kalluunka oo warshad ku lahayd ayaan qofka ka shaqatay ama wax yar ka shaqatay ilaa kii xoolaha insha Allah inuu ka soo kaban ilaahayna isaga raxmaanahu awl khariq bayna sino isaga inuu dadjin waxa jirta guddi doofaanta qabilsan oo dhowr wasaarad ka kooban waxay sameeyeen horrac dhibaatada intellectual evaluation-ka waxa imkana ay sameeyeen report caama si comprehensive oo nidaamsan waxa dhacay caalamka loo gaarsiyo inaguna ogaano hawshan oo qaybsanaato aan isbuuqiyo waxyaabeen gurmadkii horreeyay wuxuu naga soo gaaray Djibouti kii labaad wuxuu naga soo gaaray Imaaraadka Carabta caalamka kalena gurmadkoodu aad bay soo qaban qaabinayaan safarada way la soo hadleen hay'adaha hore way ordayaan hay'adaha qaarkood goobta way gaareen waxaan u tagay UNICEF hay'adda la yiraahdo way isqaybiyeen hay'aduhu si nidaamsan bay isu qaybiyeen oo qolo waxa loo qaybiyay kaariyo saaxil qaar sanaag qaar hargeysa barjeex gobol baa loo qaybiyay laakiin gobolada buuraha ka hooseeya buurleyda ayaan la mari karin gaaraan markay dhibaatada wata inaguna helicopter ma naan yeelan insha Allah mustaqbalkuna heli doonaa taa waxaan ku soo koobayaa dhibaatada dhacdana oo intaas la eg tahay qarankana waxa la rabaa inuu gurmado siiba dadka caafimaadka yaqaan loo baahan yahay xoolaha iyo dadka jaamacadaha isbitaalada kuwa private-ka dadka badan haya maanta waa heer qaran gurmadka laga qayb galaya iyadoo la farin buuq isbitaal waliba shaqaaleysa jaamacadda caafimaadkeeda wasiirka caafimaadka waxa hogaaminaya wasiirka caafimaadka waa la qorsheynayaa si loo gaari karo dadka xanaanada xoolaha iyo dhalinyarada xoogga ah sidii loo gubi lahaa xooli bakti oo jiifa meel biyo mareykanka oo hadduu roob kala oo biyo mareykanka ay qaado xoolaha baktiga dadku ku soo door biyaha cabi doonaan taanta saaka baxay gurmud u baahan wada mid ah qof la meel ka saarska xirtaaro